si balbal isaga dhigtid maqaayada tagay suud weyn soo qaadanaysaa koofiyadan waa soo qaadanaysaa waa nooc gaar ah oo kiyaalaha sanka soo saaraysa si loo dareemo in cilmi iyo aqoon ay ka soo daadanayaan buugaag baa soo qaadanaysaa sidoo kale buuga waliba la dhaho manfay waa caadi buunkaaga dalbanaysaa ama qaxwaaga aadaysaa ma cabaysid waa fiiqsanaysaa wax fiiqsi la dhaha samaynaysaa kadib buuga baa dhahaysaa markaa rogaysid waa in xaashida la dareemo waa rogaysaa haddana mar labaad waa akhrinaysaa buuga kusoo jeedinaysaa dadka saasa indhaha uga eegaysaa waa yasaysaa waxaa laga jaahiliin wey 90koodii la hadda isdagaalayaan markaa buuga akhrinaysid sadarada waa raacaysaa waa bilaabaysaa waa dhamaynaysaa waa bilaabaysaa waa dhamaynaysaa baa dhahaysaa si loo dareemo inaa marba warqad dhamaysay sidoo kale duqsiga iyo waxaan iska babinaysaa dabaysha shiirka waxaa leedahay Soomaalida iyo dad baa meelaha maxay tahay baa leedahay buuga isku babinaysaa maxaa yeelay aqoonta isku babinaysa moogta si fiican u fadhiisanaysaa sheeko qosol leh marka aad soo marto waxaad qoslaysaa qosolka aqoonyahanka qosol xaraga leh buuga isku laabeysaa waad sidii waxyaabay baa iska dhigaysaa haddana way qoslaysaa 3 jeer ka badan lama qoslo buuga waa laabaa marka qosasho buuga waa inaad ku laafiyoto markaad soconayso waa inaad dadka tusto socod weliba cajiiba socodka aqoonyahanka u gaarka ah waa inaad socoto si jeedkaaga waa inuu sidan noqdo lugahaaga waa inay kala jeedaan calaamadda ugu weyn ee aqoonyahanka waa inay lugihiisa kala jeedaan waqtiga ay qoraxda dhici rabto oo maqribku soo galayo waa inaynan ku dhaafin waa inaad dhugato caalamka waa in xalka Soomaaliya ka fikirto waa in falsafada badan halkaas ay ka beermaan oo ka abuurmaan oo tiraado in Soomaaliya maxaa lagu xalin karaa siyaasadda talo madaxweyne ma noqdaa talo soo sharaxa